haatan waxaa khadka telefoonka ku jira garaad cabdirashiid cusmaan waraabadheere oo kamid ah isimada sool sanaag iyo cayn garaad ku soo dhawow warbaahinta ugu horeyn garaad waxaa ka soconaya deegaamo kamid ah gobolada sool iyo nugaal dagaal beeleedyo dhiig badani ku daatay dagaal beeleedkaasi wuxuu u dhaxeeyaa dad shacab ah oo reer guuraa ah ka isima ahaan dagaalkaasi saad u aragtaa bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin adeero waa mahadsantahay aad baa u mahadsantahay allah ku barakeeyo adeerow waxaan u arkaa sida dadka ismada iyo dadka waxgaradka ay kala waayo arkaan dagaalkaas ودلائل بديجيستي كتبت لنا كل كان كتبت لنا كل وعملنا كتبت لنا كل بطي مركون إلى وحول بدري إلا إن تذكي بيت إلى يوم حديثه كذا وهو إلى يوكبه ذلك أجر يعرض أصلا ونعطي أبدا الوطن معي وحنا باقي معه كان تذكي كان ولا يعرض يحمل inay joojiyaan dadka waxgaradkaana in ay hawshaas u istaagaan dad kastoo wax ka qaban karta wax ku diirin karta wanaagana ay ku kordhiso sida loo yahayna soomaaliya dagaalo fara badan baa waxay ka dhaceen dagaalkii soddonkii sano u dambeysay dagaalo beeleedyo aad u fara badan oo shisheeye soomaalida dhexdeeda gobollo kala duwana iyo dad isku oodaba ah ilaa ba u faa'iiday oo adeer wax fulo laga qabsaday ama deegaan laga fiixay ma jiro dad unbaa dhintay dad unbaa dhacday waa lagu kala fogaaday laakiin cid macaashtay iyo cid faa'iiday ma jirto soddon sano ku dhawaad kanna adeer waa dad ehel ah waa dad isku ooda waa dad isku ceel ah waa dad isku daaq ah waa dad isku biyo ah waa dad isdhalay isu adeera isu abtiya isu dhaxay isdhahay wax adeer ay ku kala tegayaan ma jirto marka waxaan leenahay walaalayaalow oo adeerayaalow dad baday iguma jirto lana faa'iidi mayso dad unbaa aakhiro loo dedejinayaa waalid soomaaliyeed unbaa hooyada soomaaliyeed baa lagu korleminayaa aabba soomaaliyeed ayaa ku awlaad waayaya dadkaas walaalaha ehelka ah walaada ha laga joojiyo oo dadka waxgaradka ay ha u qumeen waxaa kaloo yeelaysa ku jirta oo khaldan in dadka ehelka sidaa u ah walaada dhex martay dadka xoolodhaqatada ah in la siyaasadeeyo halkan wax siyaasada ah oo ka soo dili kara oo xoolodhaqato ah oo u baahan laba arrimood oo qofka xoolodhaqatada ugu muhiimsan oo ka fikera hawshiisa wuxuu ka fikiraa raxmad ilaahay dalka uga soo shubo oo daaq ku soo saarta biyana meel u gasho oo loo garo raxmad ilaahay siiyey iyadoo loo garo labadaasaa ugu muhiimsan labadaasaa xoolodhaqatada sawaysigooda iyo ahyaabtooda nololeed oo dhan labadaasay ku salaysanta maamulna ma yaqaano laarina ma yaqaano xoolodhaqato iskuulla ma yaqaanaan leyd iyo koronto ma yaqaanaan horumar ma yaqaanaan maamul hadda jiraan xoolodhaqato uma tagin mid horena uma tagin marka halkaas waxay la tahay in aan wax siyaasada ku jirin si eednimo ah dagaalkan in loo joojiyo oo waxgaradku u galo baan ku baaqaynaa dadkuna in cadowgu si toosa u shaqeeyo oo waxa la khasaarayo waxa la faa'iidayo laysu garbadigo wax badanna wax la khasaaraya badan waxna laga faa'iidaya marka adeer saasay nala tahay ummaddana saasaan ugu baaqaynaa ilaahayna in looga baqo in aan dadka lasii hurin oo olaada lasii hurin in la qabuujiyo intaasaan ku baaqaynaa adeer waxaan kaloo ku daraya intaas halka saxdaayo wuxuu ku jiraa in si shareeca loo kala baxo wixii dhibka geystana in shareeco la horgeeyo ilaa deeqda bini aadamka ayadaa cadaalad ah in taas lagu xukuntamana waa ku baaqay waa tahay aad baad u mahadsantahay garay
الله يعطيك جزاك الله خير ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.